Waa hagaag soo dhawaada dhalinyaro waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa sideed u samaysan kartaa Faucet Pay account ama sidee loo sameeyaa Faucet Pay account. Muuqaalkan ayaan kugu tusi doonaa. Ugu horreyn ku soo dhawow muuqaalka oo faahfaahsan. Marka hore waxaad samayn doontaa browser-kaaga ayaad soo geli doontaa ama Google-kaaga. Kadib waxaad ku qori doontaa Faucet Pay ayaad ku qori doontaa Faucet Pay. Intaas oo kaliya ku qori doontaa kadibna waad search garay doontaa. Kadibna website-ka u sarreeya ayaad ku dhufan doontaa. kadibna website ku sare markaad ku dhufato qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa. Qaabkan markuu ku soo baxo waxaad ku dhufan doontaa ay ku qoran tahay sign up. Sign up markaad ku dhufato halkan waxaa kaaga muuqda 1 2 3 iyo 4. taa koowaad waa username gasho, tana waa email-ka ku xidho, tana waa Gmail. kadibna dhamaystir weyn ama completion. kadib waxaad samayn doontaa marka horeysa enter your username ayaad odhan doontaa. magac ayaad gashan doontaa username waad wada garanaysaa maan malaynay magac ayaad gashan doontaa. tusaale imika oo kale waxaan gashanayaa Diego oo kale 23 oo kale ayaan gashanayaa. kadibna waxaad ku shuban doontaa continue. intaa kadib halkan waxaad gashan doontaa Gmail-kaaga ayaad gashan doontaa. Gmail-ka markaad gashato continue aad sii odhan doontaa. halkanna waxaad gelin doontaa password aad leedahay aad samaysan doontaa. password-kaaguna waa inuu ka koobnaado xarfo, lambaro iyo calaamado waa inuu ka koobnaado. tusaale ahaan oo kale sidan oo kale tusaale xarafka horeeyana waad iska weyneyn doontaa. tusaale Diego, lambaro ayaad raacin doontaa kadibna calaamado ayaad raacin doontaa. halkanna mar labaad ayaad isla kii ku celin doontaa. kadibna waxaad sii odhan doontaa continue. intaa kadib qaybtii dambeysay ayaan taaganahay. waxaad samayn doontaa halkan ayaad saxda saari doontaa. halkan markaad saxda saarto halkan waxaad odhan doontaa I am not robot oo ah macnaheedu ma ihi robot. dabadeed waxaad samayn doontaa verification-ka yar ayuu kusoo dhigi doonaa. verification-kan waxaad samayn doontaa kan ayaad soo jiidi doontaa kan ayaad u keenaysaa adigoo bartan qabanaya oo xaggan u jiidaya. saas ayaad samayn doontaa kaa ayaad kaasaa ugu beegaysaa. kadibna waad sii dayni saxda ayay ku saari doonaa. kadibna verification-kan labaadna halkan waxaa kaaga muuqda 3 option 1 2 3. waxaad samayn doontaa soo kaasi uma horeeyo, kaasina waa 2, kaasina waa 3. kan ayaad 1 ka dhigaysaa, sidoo kale kanna 2 ayaad ka dhigaysaa, kanna 3 ayaad ka dhigaysaa. qaabkaas ay u kala horeeyaan baad u kala horeysiinaysaa. kadibna waxaad odhan doontaa apply ayaad odhan doontaa. apply markaad qaabkaas jira waxaad ku dhufan doontaa sign up ayaad kusoo dhufani. sign up markaad ku dhufato hadda saas ayuu noogu samaysay. halkan wuxuuna leeyahay waxaad sheeg garaysaa email-kaaga. linki ayuu inoogu diray oo inaa akoonka soo verify garay no ayuu doonayaa. kadibna waxaad soo geli doontaa Gmail-kaaga ayaad soo kicin doontaa. waad ka soo bixi Gmail-ka ayaad iman doontaa. Gmail-ka markaad timaado refresh ayaad yar odhan doontaa si uu kuu soo galo linkiga uu kuu soo diray. kadibna waa kan ay linkiga hadda ku qoran Faucet Pay. kadibna waad ku dhufan doontaa. markaad ku dhufato waa kan hadda kan ayaad ku dhufan linkiga wuxuu ku leeyahay active garay account-kaaga. linkiga markaad ku dhufato toos wuxuu ku geyn doonaa Faucet Pay-ga ayuu toos ku geyn doonaa. kadibna aan isla aragno Faucet Pay markuu qaabkan kuu keeno hadda halkaas wuxuu nagu yiri waa la active gareeyay account-kaaga. kadibna waxaad samayn doontaa halkan login ayaad ku dhufan doontaa. login markaad ku dhufato halkan waxaad gelin doontaa email-kaaga ayaad gelin doontaa kugu samaysnaa Faucet Pay-ga ee aad hadda samaysanaysay. kadibna continue ayaad odhan doontaa. halkan waxaad gelin doontaa password-kii aad hadda soo samaysatay ayaad kadibna I am not robot ayaad odhan doontaa. oo calaamadii ayaad xaggii geyn doontaa. intii oo kale ayuu kuu dirayaa labadii qaybood.
kadibna saa markaad u xaliso kadibna mar kale iyo wuxuu kuu soo dhigayaa gmailkaaga soo eeg waxaan kugu diray 6 lambar oo kood ah ayaan kugu diray kadibna waxaad ku noqon doontaa gmailkii ayaad ku noqon doontaa. Hadda akoonkeenii sidaas ayaan usoo galnay qaabkaas ayuu hadda kugu samaysan yahay akoonkii Fursad Paygu. Hadda laga bilaabana waxaad haysataa Fursad Pay account verify garaysan oo sax u shaqeynaya. Haddaba waxaad samayn doontaa hadda wax kaa dhiman ma jiro, Fursad Pay san ayuu kugu samaysan yahay. Haddaba marka aad dooneyso qaabkii aad lacag soo dhigan lahayd amaba aad lacag ugala bixi lahayd waxaad ku dhufanaysaa qaybta profile uu ku sawiran yahay xagga sare. Qaybtaas markaad saa ugu dhufato waxaad ku soo doontaa halka ku qoran tahay deposit lacag soo dhigo ama withdraw. Deposit and withdraw halka ku qoran tahay aad ku dhufan doontaa. Kadibna waa kan hadda lacagtii aad dooneysay inaad la baxdo ayaad search garaynaysaa. Tusaale waxaan doonayaa inaan lacag USDT aan kala baxo. Waxaad samaynaysaa waa tan lacagtii waa tan USDT-dii waxaad ku dhufan doontaa 3 dhibcood ayaad ku dhufani. 3 dhibcood markaad ku dhufato waxaad ku dhufan doontaa withdraw ayaad ku soo dhufani. Withdraw markaad ku dhufato waa tan hadda waxaad halkan gelin doontaa addresskaaga markaad geliso lacagtana waa tan kadibna amount-ga ama lacagta aad doonayso inaad dirto ayaad halkan gashan doontaa. Kadibna waxaad ku dhufan doontaa place withdrawal. saasay lacagtaada kugu baxaysaa. Hadda inaad wada fahamtay ma filaya. Muuqaalkan haddii aad ka heshay like garee, sidoo kale la wadaag asxaabtaada si uga faa'iidaystaan. Sidoo kale kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar oo nagu soo biir si aad mar walba noogu xidhnaatid muuqaaladeena aad ula socotid.